افتحوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. فايزة سيتا inaad soo kordhisid shay waxtar u yeelan doona aadanaha kuma xirna oo kaliya inta ay la eg tahay awooddaada dhaqaale balse waa arrin u baahan maskax fiyow iyo dadaal dheeri ah. Faysal Cali Xuseen oo ah wiil da'yar waxa uu farsameeyay diyaarad macmal ah wuxuuna si tijaabo ah markii ugu horeysay ugu socodsiiyay dhulka agab ka kooban biro batari iyo ashyaa kale oo uu jarjaray ayuu ka farsameeyay diyaaradan waxa uuna haatan ku rajo weyn yahay in mar uuna hawada sare ee dalka Soomaaliya uu ku mari doono diyaarad uu duuliye ka yahay isla markaasna isagu uu farsameeyo. waxaa la yiraahdaa Faysal Cali Xuseen ee jooga magaalada ku sugan magaalada gobolka Galgaduud galmudug waxaan farsameeyay diyaaradan soo ujeedaanba aan waqti iyo juhdi aad u fara badan aan galishay saad u jeedaana waa diyaarad shaqeynayso caadi saarmeeda waa soconaysaa halkaas u jeedaanba توكل يكون قادت والله وقتي هذا يقعد horta ma dhaweyn waan jeclaa baasha diyaarad inaan sameeyo muddo badan aan ku fikir jiray waagan yaraa ilaa hadeertaan lisaas ugu fikiray laakiin hadeertaan ii suura gashay sanadada ugu dambeeyay inta badan waa ogtahay waa ka wareeyay dalka laga helo muddo u qaadatay waa ogtahay saad la socotay dalka laga helo waxyaabaha qalabkaadi u baahan tahay hadda dadam shay maanta u baahatay dadana kaaga sidan aan u gurceylan jooga inta kale qofka diyo jooga waxyaabo yar inuu hela laga yaabaa laakiin gurceyl saa ku heshay adag tahay shayga u baahan tahay hadda mesela oo kale hadii aad shay u baahatid dadka farsamayaqaanada u tagtid oo kale adoo dhaqaalahaaga wata ay waxay ku leeyihiin waxba marka shay markuu wajidid wuxuu ku leeyahay waa haya laakiin marka dambe wuxuu leeyahay ku raadinaya iska ka wareejina marka dhibaatadaasna way ay jirtaa hadeertaan mashiinka u jeedid remote control kan muddo dhan aan sugay mar dhow ii yimaadeen waa furihi laga hagi lahaa in muddo eega maqnaayeen qalabka xirxiritaankoodana waxay u qaadatay muddo hadeertaan ilaa waxa laga joogaa saas leeyahay waa tii labaad tanadan soo bandhigayo مدة 6 بالأجهزة بيوقعت سنجعلها ديارتنا. وتن معناها تنا ريموت كنترول لها لكن تا في لا واحد نيس لكن تنا ريموت واحد لها. وهرمرين أياس مثلا. ها عسرين معناها قاب كانوا ما يسمى سنين ريموت ما يصلحين ده واحد سنة كرنت عادي بريس أو واحد سنة ها. لكن قلب كان إن وجواري عيالك يكون عياران مشين لها جوا. وداني أنا بدري أنا كده جدا نشده أوجدت هذا ماشين كل شقينا سو كلاته وماشين دينا ما أنكلا بحي ترابنا هنا تغني كلمة كان البارش باش الوفور ماشين كا بترجن وبتري معملة واحد من بنا أسكوك كان سداي يقلب كأوجدت عن جرجري هذا دوشة تبضع ديرو أوجدت الحرير ده ولير كارتو مقال جاي سمح له أكلا صوب حي أنت كلاتنا ده وعلى أنا أسكوك كان سداي ما عن شيء ديارات قصية أنا ومال أن كلا إيمت والله ده عقباتنا وكلا كل ما يسامر وبابا لكن ده مرة قفوا بحكولية قفوا حكولية هاي قفوا حكولية هاي يعني إنك ديارة السمية وكلاته مقالة مركا مرة عرورته وكلاته قفوا بقى له إنك ديارة مرة قارو حتى لامي عن كعراءون كحبيا سي معنا قفوا بقى حكولية ده إنك ديارة السمية ورا موالان تاي ما ديارة الصومال السمية ريا وكجرتا ده هذا كان ملك قارو أن كسر قدام مالان هديد ودنك يقول لها إن ميلا قارو مشينا laga soo gata damaanta ma hor fadhiyeen diyaarad dhulkii ku soconaysa waxaan soo bandhigi lahaa $100 laakiin hadda mashiinada waa wax aan isku keenay wax diyaarad shaqo kule ma ahan shayba meelan ka keena soo aruursha dhamaan mas'uuliyiinta Soomaaliyeed iyo shacabka dhamaan waxaan fariina u dirayaa dhalinyaro aad u fara badan oo dalka ku nool oo hal abuur leh u baahan in la garab qabto oo in la taageero laga bixiyo waxbarashada u baahan warshadaha dalkan ganacsatada badana waxay sameeyaan shay arkaysid container waxay ku soo kireysanayaan oo $10,000 jooga alaab ku jirta alaabtan mashiinki sameyn lahaa wuxuu jooga $4,000 ama $3,000 ayagoo awooda inay mashiinki dalka keenaan ayaa hadana waxay ka doorbidaan inay soo dhoofsadaan caqabad weyn baa halka ka jirta haddii ganacsatada ay keeni lahayn warshadaha alaabaha badan oo dalka lagu farsameyn karo rag fara badan oo farsamayaqaanaha joogan ay sameyn karaan laakiin sidaas oo ay taana ganacsatada waxay ka doorbidaan inay dibadda ka dhoofsadaan ganacsatada waxaan ka codsan lahaa inay mashiinada iyo warshadaha alaabaha yarka oo lagu sameeyo inay dalka keenaan Faysal Cali Xuseen kaliya ma uu safar sameynin diyaarad
waxa uu sidoo kale farsameeyay qalabkan ama agabkan inii muuqda halkan sida inii muuqato waa burjiko taas oo digsigan la dul saaray sidoo kale qalabkan kale isaga ayaa farsameeyay oo qaab sida samgaasta ah ayay u shaqeynayaan halkan waxa ku jira biyihi halkaana waxa ku jira naafto waa arrin u baahan in lagu bogaadiyo mana ahan wax sahlan in aad adigoo maskaxdaada iyo muruqaaga maalaya in aad ku dhiirato sida wiilkan dhalinyarada ah oo kale inaad farsamayso qalab sidaan oo kala ah adigoo oo ku sugan dalka Soomaaliya kuma koobna kaliya agabka aan sameeyay diyaaradda in waxa la socdo burjikadaas oo u shaqeynaysa sida samgaaska kala in halkan waa caag 20 la ama jirgaan qof walba u yaqaan waa la ariyaa waashaas lagu bambeeyaa waa la buuxiyaa marka buuxidi kadib waa ka furaha sayleed halkaas ka furanaysa naqas kalkaas ka soo baxaya wuxuu imaanaya qaybta bensiinka ka sii gudbaya si u yareeyo dhibaatada ka imaan lahayd waxay soo dhaxmarayaan marka hawada bensiinka biyaha kadib uu sii gudbaya halka oo gaaska burjikada ayuu sii gudbaya halkaas ka shaqo bilaawaya waana shidanaysa qaraxada ama waxa ku shido waa saaranaysa kadibna ayr badarka kugu bislaynaya adoon dhirna jarin dhuxulna aadan isticmaalin qiiq fara badan oo soo gaarin si fudud ku karso waa hadda intaan aw jeedid waxa isticmaali kartaa in 15 cisho waa 1 litir 15 cisho waa arin aad iyo aad u wanaagsan ay ugu dambeeyaysa dhirta waa la jaraa in badan qofba soo doona u adeegsada qaarkood dhuxul bay u adeegsadaan qaarna dhulkii dhul beereed waxbay ka dhigtaan sidaas oo ay tahayna hadana waxay u baahan tahay in dhirta in la badbaadiyo bii'ada si u yaraadaan abaaraha fara badan ee soo laabta mar walbana ma ahan dalkeenu in loo weydiiyo madaxdeena ay toogsi u tagaan dalal kale waxaan u baahanaa inaan anaga wax soo saar yeelana dalkanagana uu horumar ku tilaabsado haddii la horumariyo kale taada burjikooyinka noocadan oo kale tasaatan u shaqeeya hadda kuwan waa caagada laga dhigay biro adag oo aan wax dhibaato midkood aanan keenin dalka waxa badbaadi lahaa dhir aad u fara badan roob yaraanta ay abaarta faraha badan waa laga bixi lahaa kuma koobna kaliya hawsheeda intaan sidoo kale farsamayaqaan dharka tolo noocyadiisa kala gedisan aan ahay Cabdifatax Yuusuf Baarad warbaahinta Shabeelle Gurceel